kusoo dhawow taxanaha taariikhaha dalalka caalamka kuna soo dhawow taariikh kooban oo ku saabsan Kenya. Kenya ama si rasmiga loo yaqaan Jamhuuriyadda Kenya oo wadan ku yaal bariga Afrika. Baaxadda Kenya waa 580,367 kiiloomitir oo laba jibaaran. Waa dalka 48aad ee adduunka ugu weyn marka loo eego guud ahaan bedka, iyadoo ay ku nool yihiin dad ka badan 47.6 milyan oo qof. Tirakoobkii 2019 Kenya waa wadanka 29aad ee ugu dadka badan. Caasimadda Kenya iyo magaalada ugu weyn waa Nairobi, halka magaaladeeda ugu da'da weyn caasimadda ugu horeysa ay tahay magaalo xeebeedka Mombasa. Magaalada Kisumu waa magaalada saddexaad ee ugu weyn, sidoo kale waxay leedahay dekad gudaha ah oo ku taal harada warta Victoria. Xarumaha kale ee magaalooyinka ee muhiimka ah waxaa ka mid ah Nakuru iyo Eldoret. Laga soo bilaabo sanadii 2020 Kenya waa dalka saddexaad ee ugu dhaqaalaha badan wadamada Saxaraha ka hooseeya marka loo eego Nigeria iyo Koonfur Afrika. Kenya waxay xuduud la leedahay Koonfurta Suudaan, Ethiopia, Soomaaliya, Uganda, Tanzania, halka dhanka koonfur bari ay xuduud la wadaagtay Badweynta Hindiya. Waxay xorriyadda ka qaadatay 12 Diseembar 1963 Ingiriiska, waxaana laga dhigay jamhuuriyad 12 Diseembar 1964. Kenya waxaa lagaga hadlaa laba luuqadood. Luuqadda rasmiga ah ee waddankan waa Swahili, halka luuqadda ku xigta ay tahay English. sidoo kale haddii aynu eegno dhaqaalaha Kenya sanadii 2013 ilaa 2017 dhaqaalaha Kenya wuxuu kobcay 5.5 boqolkiiba, waxaana lagu qiyaasay inuu kobci doono 6.1 boqolkiiba sanadii 2019. waddanka Kenya sidoo uu xoroobay dhaqaalihiisa kor ayuu u socdaa, waxayna soo saaraan sokorta, biyaha macaanka, qamadida, qamriga, warqadaha, nalalka, alaabta baabuurta iyo wax badan oo kale. dadka adduunkan way u soo dalxiis tagaan waddankan. dhaqaalaha Kenya maanta wuxuu gaaray dhaqaalaha ugu xooggan bariga Afrika. waddanka Kenya wuxuu ku dadaalayaa horumarinta shacabka Kenyaatiga iyo dhismaha dalkooda. haddii aynu eegno jawiga dalka Kenya, jawiga Kenya waa kuleyl. dhinaca xeebaha waqooyi Kenya waa meel doog ah oo roob badan ka da'aan. roob badan ayaa Kenya ka da'a bilaha Maars iyo March, roob yarna wuxuu ka da'a October iyo November. haddii aynu eegno dhanka diinta, 85.5 boqolkiiba tirada guud ee dadka waa Masiixiyiin, halka 11 boqolkiiba ay yihiin Muslimiin, 2 boqolkiiba ay yihiin dadweynaha Hinduuska iyo kuwa kaloo aaminsan caqiidooyin iyo diimooyin kala duwan.